qabiila lee adeegsaday taliya saldhig hodar ay adeegsaday taliya BS la ay adeegsaday waxa ay adeegsaday ninka khaliif la dhaho oo security-ga ka kalkaal walaalayaal garawa idinkaga baaraya waa meel sharci darra meesha kirada ay ka qaataan ayadoo haddana laga gashta shaati habrigidir anaga Soomaaliya ah ku nool Muqdisho qabiilkaygana kulay dadka fiidiyoyada iga arkaa sheegi doona anoo istaal banaadir ku dhashtay in meesha Kaaran ma umaleysaa leedahay igu dhacdo maanta Kaaran iyo hodan waa soo ka mid anaa labadoodaba labadaas taliya igu la kacay fal edab darre bismillaahir waa dhawa walaalo aad u qiireysanahay codkayga inuu xabaab iga yeeshto dareem weysiina umaleynaya aad u qiireysanahay igaraale noqda waxa ah maamo Soomaaliyeed oo la yaqaan oo ku ganacsato isgooska banaadir xaalado waxa la igu sameeyay aan bini'aadanimada ka baxsan meel ku ganacsi jiro maqaayada la iga jibiyay guriga canaxaashi oo la yaqaan darbigiisa aan ka raadsada meel gabadha ku leeshiyay niman kashko meesha taliyaalka nin la yiraahdo BS oo waax iyo nin la yiraahdo Mustafa Ali Faras oo saldhigga hodan haysto taliyaha saldhigga hodan ninka BS la xal maqribti wuxuu iga qaaday $1200 meesha uu ku dhameeyo waa degaysaa saakan oo isle in adeertiisu $800 ka qaaday maxaa kala jeedaa walaalo saan waa maxay markaan dhahay nin khaliif la nagu dhex jiray oo istaal kalkaal ka shaqeeyo security-ga kalkaal oo la yaqaano oo khaliif cali la dhaho maxaa kala jeedinsaa maxaa u sameysay markaan dhahay waa ka xumoori khaliif ninka la yiraahdo BS-ne saasoo inta farta wajiga iga saaro yiri inta Kaaran ma umaleysaa marka aad ugu xumaano isbitaal banaadir ku dhashtay in dirbigiisa la igu dhaho Kaaran ma umaleysaa ma hadli karo idinkoo raaliya dhibkaas ay iga soo gaaray waa shaqaystaa oolaada kursada 9 caruur oo qaarna agoon yihiin qaarna aabayaal yihiin ay joogo xoogayga ku shaqaysan jiray anoo istaal banaadir ku dhashtay in meesha Kaaran ma umaleysaa leedahay igu dhacdo maanta Kaaran iyo hodan waa soo ka mid anaa labadoodaba labadaas taliya igu la kacay fal edab darre waxaan ka codsanayaa nimanka amniga ku shaqada leh ama dawladda ku shaqale ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha maalin kasta ka hadlo hooyooyinka ilmahooda oo dhaho cadaaladan hooyooyinka uga hadlaya iyo ninka la yiraahdo Muungaab oo haysta gobolka Banaadir inuu arrimahayga soo falgeliyo waa la handaday qabiila la adeegsaday lacagtayda shaladii laga qaada saakal ii soo celiyay $1200 intii iga qaado ii soo celiyay BS markaatiye leedahay walaashiis in adeertiisa $800 ku dajiyay anigana waxa la dhax Kaaran ma inta umaleysaa xaq baa u yeeshtay Kaaran ma umaleysaa Itoobiya ma jooga ani Muqdisho jooga hooyo waxaan xoogeeda caruur ku kursato falkaas ay soo gaar maanta dacwana meesha ka furo lahay ama aan ka dacwo lahay waa saldhigga hodan oo laga xukumo ninka xukumo oo taliyaha saldhigga ay ugu la kaca falkaas ha soo fargeliyo ninka cali la dhaho oo gudoomiyaha degmada hodan ha soo fargeliyo warkayga gudoomiyaha gobolka Banaadir codsigaygu ha gaar ra'iisul wasaaraha arrimahayga ka soo hadla si ula jeedaa oo fal ula jeedaa oo qabiilaysan oo qabyaalada la igu la kacay ani meesha ana u soo horeeyay meesha ana u xaq lahaa hayga dejiyo BS ninka loo mayo may ka dheh qabyaalada la igu la kacay qabyaaladaas dawladdu ha ka hadasho hooyo ahay maskiina ilma korsato derbi ka korsato kireysata waa meel sharci darra meesha kirada ay ka qaataan ayadoo haddana laga gashta shaati habrigidir anaga Soomaaliya ah ku nool Muqdisho qabiilkaygana kulay dadka fiidiyoyada iga arkaa sheegi doonaan ama yaqaanaan 15 sano soobii banaadir inta ka dhaxlo qof ku nool ah oo xoogsata oo xoogeeda qabiila la adeegsaday taliya saldhig hodan ay adeegsaday taliya BS la ay adeegsaday waxa ay adeegsaday ninka khaliif la dhaho oo security-ga ka kalkaal walaalayaal garawa idinkaga baaraya caawimaad okay waxaan kala BS codkayga u raacinayaa أنا استال بناندري أقول استحق الله حدون تيد استال بناندري كدوغن تاي ما أنت أنا إيراعي ماشي أنا كاران ما كاران أنا إسكالي هذا أنا إسكالي استال بناندري أنا كلشت أسرع أرد كيمد ما فهمت ترى الله ما عاوي وجهند ذا وشاتك دولة ده شاتك دولة ده وجهند ذا ترى النمط وجهند ذا الرمية دولة ده هكسوا هذا الشيء صدق دقة
haddii kale meeshaas buro baleema ka dhalana